السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قيارتي سو دوادا ومركله برنامج كله iyo Kista TV وأقمالين قميصة سقال tobanka bisha June 2025 kusoo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ku eegayno sida dagaalka u dhaxeeya Israel iyo Iran uu saameyn weyn ugu yeeshay duulimaadyadii u dhaxeeyay Mareykanka iyo Bariga Dhexe iyo talaabooyinka cusub oo ay qaadayaan Mareykanka iyo shirkadaha diyaaradaha caalamiga ah. shirkado waaweyn oo diyaaradeed oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa si rasmi ah u hakiyay duulimaadyadii ay ku tagi jireen dalalka Bariga Dhexe sabab la xiriira xaaladda amni ee halista ah ee ka taagan gobolka Bariga Dhexe. shirkadda United Airlines waxay sheegtay in ay joojinayso duulimaadyadeedii maalinlaha ahaa ee u dhaxeeyay Newark Liberty International Airport ee ku yaala state-ka ama gobolka New Jersey iyo magaalada Dubai iyada oo sabab uga dhigtay dagaalka ka socda gobolka. United Airlines waxay sheegtay in aysan jirin waqti cayiman oo duulimaadyadaasi dib loo bilaabi doono. waxaa xusid mudan in Newark Airport uu yahay garoonka kaliya oo ay u isticmaasho shirkaddani in ay duulimaadyo ka samayso u socda Dubai. dhanka kale shirkadda American Airlines ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay si ku meel gaar ah u joojisay duulimaadyadii u dhaxeeyay Philadelphia International Airport iyo magaalada Doha ee dalka Qatar. joojintaasi waxay socon doontaa ugu yaraan ilaa 22 bishan June sida uu CBS News u xaqiijiyay afhayeenka shirkadda. shirkadda Delta Airlines ayaa iyaduna ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalka Mareykanka waxay horey u shaacisay inay joojisay duulimaadyadii ka baxayay JFK International Airport kuna socday Tel Aviv. waxaa la qorsheeyay in hakintaasi socon doonto ilaa 31 bisha August 2025. waxaa si weyn loo dareemay isbeddelka hawada sare ee Bariga Dhexe. waxaa la xiray hawada sare ee dalalka Israel, Urdun, Iran iyo Iraq. waxaana maamulka duulista hawada ee Israel uu sheegay in hawada ay xirnaan doonto ilaa amar dambe. garoonka Ben Gurion ee Israel oo ah kan ugu weyn dalkaasi ayaa gabi ahaanba xiran. sidoo kale diyaaradaha Mareykanka kama duulaan garoonka Tehran Imam Khomeini Airport oo ah garoonka ugu weyn dalka Iran. shirkado kale oo caalami ah sida Emirates, Etihad Airways, Lufthansa iyo kuwa kale ayaa sidoo kale joojiyay duulimaadyadii ay ku tagi jireen qaybo ka mid ah Bariga Dhexe. marka aan u gudubno sababaha ugu waaweyn ee keentay xaaladda cakiran, Israel ayaa toddobaadkii hore bilowday weerar ay ugu magac dartay Operation Rising Lion oo lagu beegsanayo xarumaha ciidan iyo kuwa nuclear oo ku yaala gudaha Iran. dowladda Israel waxay sheegtay in ay hayaan sirdoon muujinaya in Iran ay aad ugu dhowdahay horumarinta hubka nuclearka. Iran ayaa si degdeg ah uga jawaabtay iyada oo ku weerartay Israel gantaalo ballistic ah taasoo sii kicisay colaadda u dhaxaysa labada dal. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si cad u dalbaday in Iran ay si shuruud la'aan ah isu soo dhiibto. waxaa jirta warar laga helay ilo sirdoon iyo saraakiil sarsare oo Mareykan ah kuwaasoo sheegay in Trump uu ka fiirsanayo inuu weerar military ku qaado waddanka Iran si rasmi ahna ugu biiro dagaalka Israel. afhayeenka aqalka cad Caroline Levitt ayaa Khamiistii sheegtay in madaxweynuhu uu go'aan ka gaari doono arrintan toddobaadyada soo socda. safaaradda Mareykanka ee Qudus ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ay diyaarinayso qorshayaal lagu daadguraynayo muwaadiniinta Mareykanka ah ee ku sugan dalka Israel. qaar ka mid ah dadkaasi ayaa horey looga saaray dalka Israel iyada oo la isticmaalayo maraakiib dalxiis. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa duldhigtay digniin safar heerka afaraad ah oo ka dhan ah Israel taas oo uga digaysa muwaadiniinta Mareykanka in aysan safar ugu tegin dalkaasi sabab la xiriira dagaal, argagixiso iyo qalalaaso bulsho. Iran waxay horey ugu jirtay liiska madow ee hasafrin sabab la xiriira halista argagixisada, afduubka, xariga sharci darrada ah iyo xabsi aan sabab lahayn oo lagula kacay muwaadiniin hore oo Iraniyiin ahaa oo ka tagay dalka Mareykanka. waa xaalad aad u kacsan oo si joogto ah isu bedbedelaysa. waxaan idin soo gudbin doonaa warar cusub haddii ay dhacdo in Mareykanka uu si rasmi ah
uga qayb qaato dagaalka ama dib loo furo duulimaadyada bariga dhexe. Fadlan channelka subscribe saar si aad u hesho wararka ugu dambeeyay, faallooyinkana hoos noogu reeb maxaa ka qabtaa go'aanka Trump iyo xaaladda guud ee gobolka bariga dhexe. Tan iyo warbixinteena dambe, nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.